markii maanta nin la magacaabo oo xil culus loo magacaabo dadka sida badan ninka aysan aqoon u lahayn laakiin ay meediyaha ka maqlaan magaciisa iyo xilka loo magacaabay inuu culus yahay qaara waxay leeyihiin horta ninkaas yow yahay waa reer hebel markii reer hebelkii asaga uu ka waayo danihii asaga uu ka rabay ama wax u soo dhawaahay uusan wuxuu leeyahay war hooyadiisay ahayd hadduu waayo wuxuu leeyahay naagta asaga uu qabayay ahayd intaas wuxuu raadiyaa meel irid oo haduu asaga dhibka uu uga badbaado haddii uu dhib sameeyo ama hawl kale uu qabto dhihi ma war ninkan aqoontiisa maxay la ekeed dalka iyo dadka muxuu qaban karaa lama laha wuxuu ka bilaabayaa meesha hadhow iridda asaga uu ka geli lahay meeshaas ama uu dana gaara uu ka fusho lahay kow midda labaad horta dadka iimaanka dadkan hadda waddanka madaxda ka ah horta iimaanka allaha gelisho gabadha hadda iga horeysa waa sheegto waxay tiri meel meydka laga bixiyo xataa male ummaddii way cadiban tahay xarig haddaan ku daalnay mid kale inaan u naqanana ma rabno marka waxaan leenahay dadkaas waxaan fariin ku gaarsiiyeynaa ummadda horta inay dhibka ka daayaan waxaan ka dheefna iska dhaaf annagay dhib iyo cadaabna gelsheen marka ilaahay iimaanka ha gelsho annagana nasri khayr qaba allaha na siiyo inaan hawshaan odayaalka dhaqanka haddii aan nahayne dib inaan u laabanno ma rabno hawsha waa inaan culeyskeeda aan saarnaa dalkane loo yacni ma taqaanaa lagu hadda waddo fiican uu heystaa waddada hadda uu haysta aan laga celin ay ummadda sideedaba horay loo wado oo aan la rabin in gadaal loo dhaqo qax iyo dhibaato kale dib loo gelin ninkii dhammaysta muddaxileedkiisane asagoon ummadda dhibin haddaan loo baahnayn ha iska tago ummadda kale yuu dhibin